السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وولالكين عبد العزيز كورسيدين سي بروجرامينكا كوركيسي أفراد كوركي كان كوري waxaan ka soo hadlay afartii xisaafal waxay noo socdo waxa loo yaqaan operators oo shan ha arithmetic operator, rational operator, segmental operator, incremental operator iyo logical operator. kolka qaybaha operatorka soo shaqeeyaan hameenka dhaweysta sharaxnay koodhkooda waan ka hadli doonaa insha Allah. maantana waxaan ka hadlaynaa waxa loo yaqaano rational operator oo muxuu ahaa greater than, less than iyo waxa loo yaqaan equal kaasoo ka hadlayay. kolka insha Allah casharkiina waxaan ka dhigi doonaa equal ka soo shaqeeyo. waxaan ka bilaabi doonaa hash include. hash include stdio dot main warku koodh ku bilaabay execution. waxaan ku sheegnay intan input and output oo la shaqeynaya printf iyo scanf oo labadooda midna output midna input yahay. halka hadaba execution uu ka bilaamayo oo loo yaqaan bracket through the bracket kan iyo bracket ka dhaxaysa laba variable baan kala garaysanaa. data type isticmaala waa inti a iyo b. waxaad doontaa isticmaal doontaa a b c d aan common yar noqon ma isticmaalaa a equal salahan 12 terminator semicolon wala terminator loo yaqaano b equal 10. hadaba if baan isticmaalaya if maxaan isticmaalnaa waa decision making. waxaa la leeyahay equal baan tijaabinaynaa oo ahaa rational operator. hadaba labada shay inaas barbar dhiga loo baahan yahay misleekanayaan go'aan baan qaadanaynaa. go'aanka aan qaadanayna waxay noo sameynay wax loo yaqaano decision making if statement. if else statement hadduu sidaa noqdo sidaa ay soo saar, hadduu sidaa noqon waayo sidaa ay soo saar, hadduu ka weynaado haddii mataqaana ay leekaatana way leek tahay dheh, hadduu leekaan weydana ma leeka idheh. decision kan qaadanayna ka warramana if haddii a haddaan yiraahdo imika taala haddaan imika calaamada yare isticmaal waa assign equal ma. if haddii a ay leek tahay equal kaas loo yaqaan koodhka dhan waxaan u soconaa waa equal. if haddii a ay b leek tahay, if haddii a ay leek tahay b maxaad isoo saaraysaa block baan bilaabaynaa isoo saar bracket kan through the bracket kan waxaa mas'uul ka ah if tan. hadaba print f waxaan leeyahay a and b is equal backslash n oo new line noo qabanaysa oo ka tirsanayd waxa loo yaqaan escape of character. waaye hadaba if taas intaas noqonaysa haddii kale ls statement biyadna leedahay bracket ka yar la furo burigiisa waxaan leeyahay printf f oo inoo qabanaysay display halka scan f ay ku qabanayso through the input at keyboard ka galanaysid sida saadka habeenka dhawitaas waxaan nagu tusay. haddaba waxaan leeyahay haddii kale b if haddii a ay leeg tahay b haddana if haddii b ls talaynay haddii kale b and a and b is not equal isma leeko terminator semicolon. waxaan nidhi haddii a iyo b hadaba if haddii a ay equal leeg tahay b print f a iyo b way isleeyihiin. haddii kale oo ls statement ya print f a iyo b is not equal. way
bal inoo soo fikira save as tag file tag folder kan soo isticmaala C program code maxaan ku qorayaa waxaan ku qorayaa equal buu inooga hadlayaa .c extensionka c waxa loo yaqaan .c haddii kale .cpp oo C++ loogu talagalay qaadanaya bal ha run gareeyo wixii qaldan eego way maxaad qalad halka maxaa qalad qalad noocaas ku soo baxay maxaa qaldan halkan eego hoosta errorkaas wuxuu ku jiraa waxa laga soo printf ka qaldan print halkan weeye halka labada printf ka qaldanay printf save as a iyo b is not equal wa true day isma leeka statementkii erasta ku soo baxay kolkiiba wala jigriyay markiiba a iyo b isma leeko bal imika hay'ada 12 halka kalena eegno maxaa ka soo baxay a iyo b is equal wa true isleegi labadooduba waa run a iyo b isleegi tankii ku daa a iyo b is not equal taas sax tii horena waa sax laakiin inagu taan socon waa tan waxaan ka soconaa equal kana ka hadlay labadoodu maxaa ku soo saar indhaaga maxaad ku garanaysaa inay isleekeen koodkii qor ku ogow isma leek that's true casharkaas waa casharkii equalka waxaan u galaynaa casharkii labaad isaga casharkii lixaad ee ahaa greater than iyo less than intana ma ku tijaabin doona insha Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.